السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله قيمي بدن كسر وهذا طبعا هو وين برنامج كنا في نمعة وحكمدا إسرائيل أي دربابا لغو ورميها إني بلانتي كبحدي تدبر فلسطين أي قزة جارهان خان يونس كودي شيء مانتا حماس نور أدق أي كسو صارتي يصدوا مركلة ويكعصنتهاي وحين دول استاجي دونا ويرضى إسرائيل أي قاضي qaabkay u qaaday iyo ballantii miyay ka baxday maxay dunida ka leedahay qodobada iyo kuwa kale ayaad maqli doontaa sidoo kale waxaynu barnaamijka ku dul istaagi doonaa muuqaal iyo cod sira oo laga qabtay madaxweynaha dalka Indonesia Substanto ninkan waxa isbuucan soo baxday in uu qorsheynayay inuu Tel Aviv tago wuxuuna madaxweyne ka yahay dalka muslimiinta ugu badan caalamka ay joogaan halka dal muslimiinta ugu badan ay ku nool yihiin laakiin codka isaga iyo Trump dhexmaray sheekada ee fadeexada weyn gudaha Indonesia buuqa badan ka dhalisay ayaanu idin haynaa iyadoo faahfaahsan qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonto iyana waxa kamid ah la qayrta cas ayaa la soo wareegtay 45 Falastiiniina laguna wareejinayaa dadka reer Falastiin meydadkooda 45 kan meydadka ayaa la sheegay qaar badan oo kamid ah in ay ku jireen xabsiyada Israa'iil frinjeero ku yaala dhanka kale Israa'iil ayaa yana qirtay in afar kamida dadkii loo soo gudbiyay meedadkooda ay xaqiijiyeen inay yihiin dadkii magacyadooda la sheegay ay siiyeen qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doonto iyana waxa kamida afayeen u hadlay Hamas ayaa sheegay in loo baahan yahay dawladihii ka qayb galay shirka Sharm el-Sheikh ee 30 dawladood in ay ka rumeeyaan ay ka run sheegaan ballantii ay qaadeen xabad joojinta Gaza waxaanu sidoo kale barnaamijkeedu ku haynaa sheeko yaab leh oo dhex martay Trump iyo Macron waaye qodobka ugu dambeeyay waxaad ku maqli doontaa aaway madaxweynihii dalka Madagascar oo ka cararay dalkiisa xaguu ku maqayeen maxaa loo eryaday muxuu sameeyay Israa'iil ayaa lagu waramayaa qayb ahaan durbaba in ay ka baxday heshiiskii Gaza Hamas waxay Israa'iil ku eedeysay in aysan ballan lahayn horena ay u sheegtay kadib markii Israa'iil la wareegtay meydadkii iyo sidoo kale dadkii noolaa guud ahaan ay ahaayeen tirada 48 20 nool iyo sidoo kale inta kale oo meyd ahayd Israa'iil maanta waxa la sheegay in Gaza ay ku soo weerartay drones ama diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ilaa hadda sida Al Jazeera iyo warbaahinta kale ay qorayso Israa'iil waxa la sheegay in Gaza gudaheeda gaar ahaan Khan Yunis ay ku dishay 7 reer Falastiina waxaana weerarkan u dhacay dilkan xilli dadka reer Falastiin ay u dabaaldegayeen farxadda iyo guusha ay gaareen waxa sidoo kale muuqaalada qaar la arkayay dad qoyskoodu ay ka maqnaayeen sanadyo aad u badan oo kulmaya dadka reer Falastiin gaar ahaan reer Gaza iyo sidoo kale dadweynaha ku nool Ramallah daanta galbeed iyo qaybo kale ayaa iyagana aad ugu dabaaldegayay kadib markii la soo daayay qaar badan oo kamid ah qoysaskooda ilmahooda hooyooyinka qaar ayaa waxa ay dib ula midoobeen wiilal iyagoo dhalinyaro laga xiray oo hadda iyagoo daa loo soo daayay gabdhaha reer Gaza ayaa la sheegay qaar badan oo kamid ah inay u noolaayeen sidii dad ragoodii ay dhinteen kadib markii muddo badan ay ragooda waayeen ilmahoodana sidii agoonta ay u korsanayeen qaar ayaa ooyayay caruurta qaar ayaa aabahood aan garanaynin oo la isbarayay kadib markii Israa'iil lagala soo wareegay 1966 reer Falastiin oo xabsiyadooda muddo badan ku jiray laakiin Israa'iil waxa wali laga sugayaa maxaabiis magacyo waaweyn la uu kamid ahaa dhakhtarkii isbitaalka weyn ee Gaza oo muddo badan ay halkaasi dhinaca Israa'iil uu ku maqnaa Israa'iil ayaa lagu waramayaa sidoo kale in wali ay soo deeynin qaar badan oo kamid ah maxaabiistii lagu balansanaa iyadoo hadda ay sheegtay inta dhiman in ay soo deynayso dawladaha Mareykanka Turkiga Qatar iyo kuwa kale iyo Masar ayaa ahaa ku iyagu ballan qaaday in ay soo deynayaan oo ay ka dhameynayaan maxaabiista Israa'iil loo soo deynay dhanka Israa'iil inay soo deynayso sidoo kalena Israa'iil ay ballanta ilaalinayso madaxweynaha Mareykanka khudbadii uu ka jeediyay Sharm el-Sheikh waxa qayb ahaan kamid ahayd Israa'iil inaysan la dagaalami karin caalamka oo dhan Gazana dagaalkeeda lagu qasban yahay inay joojiyaan maadaama Israa'iil ay wax natiijo ka keeni weysay Donald Trump oo tagay Tel Aviv ayaa si weyn loogu soo dhaweeyay iyadoo ra'iisul wasaarihii hore ee Israa'iil Ehud Barak uu sheegay dadkii la soo daayay dhammaan in guusheedu uu leeyahay Donald Trump Netanyahu wax shaqo ku lahayn waxa Ehud Barak ku eedeeyay Netanyahu in wax aan qasaar ahayn Israa'iil uu soo hooyay
laakiin buu yiri cidda abaalka ku leh dadka yuhuudda inay tahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Dhanka kale Falastiiniyiinta ayaa iyagu hadda ka sugaya dowlado waaweyn oo sheegay inay damaanad qaadayaan in ballanqaadkii Israa'iil iyo joojintii dagaalka Gaza laga dhabaynayo. Lama garanayo duqeynta ay duqeysay galabta gudaha Gaza gaar ahaan Khan Yunis inay tahay mid ay dib dagaalka si toos ah ugu soo noqotay Israa'iil inay tahay mid ay maaragtay si qalada u dhacay, laakiin qubarada military ayaa sheegaya in wax yar kadib xilligii ay la wareegtay maxaabiistii iyo dadkii laga haystay inay la yaabtahay in Israa'iil dubaba ay reer Gaza disho 7 ay ka disho. waxaa la arkayay dad badan oo raashin raasanaya oo wali waxa Gaza soo galay mucaawinadii gawaari fara badan ayaa ka soo galaya xuduudda dhanka Israa'iil iyo sidoo kale dhanka Masaarida, iyadoo hadda laga doodsan yahay ama doodu ay tahay dowladihii la geyn lahaa ciidamadooda Gaza kuwa ka mid noqonaya, iyadoo Hamas ay sheegtay haddii cid aan Falastiin ahayn Gaza loo ogolaanayo ciidamadeeda in kaliya ay raali ka tahay dowladda Turkiga ciidankeeda in la keeno, taas oo Israa'iil ay tahay dowladda kaliya ay diidan tahay in ciidankeeda la keeno. madaxweynaha dalka Masar ayaa sheegay inuu ku dhawaaqayo ama uu qabanayo shir weyn oo dowladaha caalamka intooda badan ay iskugu imaanayaan loogana tashanayo mustaqbalka Gaza si dagaalka Gaza aan dib loogu soo noqonin. haddaba afayeen u hadlay Hamas oo magaciisa lagu sheegay inuu yahay Hazim Qasim sida ay sheegtay Quds News waxa uu ku eedeeyay in Israa'iil ay tahay mid durbaba ballantii burisay. weerarkii galabtan waxa uu ku sheegay in ay tahay ballanka bax iyo dabeecad lagu yaqaan Israa'iil. waxa uu baaq u diray dowladihii ku kulmay Sharm el-Sheikh 30kii dowladeed oo ay ku jireen Pakistan, sidoo kale Turkiga, Faransiiska, Britain, Canada, Mareykanka, Azerbaijan iyo kuwa kale. wuxuu dhammaan ugu yeeray in ay waxa hadda Israa'iil ay samaysay lagu xisaabiyo adduunkan oo marqaati ka noqdo, isla markaana la ogaado cidda diidanayd heshiiska ee nabadda Gaza inay ahayd Israa'iil. haddaba Hamas ayaa la sheegay in weerarkii maanta ay cadeyn u adeegsanayso, isla markaana caalamka ay tusayso ballan la'aanta Israa'iil. waxa baraha bulshada iyo warbaahinta aad looga hadlayaa caawa ballanka baxa degdega Israa'iil gudaha Gaza ay ka fulisay xilli caalamka uu dabaaldegaya ama si weyn loo soo dhaweeyay heshiiskii ka dhacay Gaza. waxa kale Israa'iil ayaa ku dhawaaqday caawa inaysan furi doonin isgoyska Rafah oo sida lagu heshiiyay qorshaha uu ahaa in bari si rasmi ah loo furo, iyagoo ku andacooday inaysan Hamas soo wareejinin meedadka ay gacanta ku haysay ee maxaabiista Israa'iil. taa wasiirka difaaca Israa'iil uu ku sheegay inay jabinayso heshiiska. tani waxa ay muujinaysaa sida Israa'iil ay rabto inay khiil ugu samayso. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa warkan laga hayaa sida uu sheegay telefishinka Sky News. haddaba xaaladdu meel adag ayay maraysaa. Falastiiniyiintii reer Gaza Hamas waxa lagala wareegay dadkii noolaa, marunba meydadkii miyaa qaar ku maqan oo ilaan heshiisku wuxuu ahaa meydadka Hamas inay u baahan tahay waqti, lafaha in la isku keeno la isku aruuriyo. waxaa jira ciidamo gaar ah oo loo tababaray kaliya in maxaabiista dadka Israa'iil laga qabtay iyo meydadka guutooyin gaar loogu talagalay baa jiro. waxaas waqti ayay u baahnayd baa la sheegaya. qaar ka mid ah meydadku waa haysataa, kuwa maqanna Hamas inay soo wareejiso ayuu ballanta ahaa, laakiin Israa'iil waxay leedahay ma furayna Rafah. Rafahna waa meel loogu talagalay in Falastiiniintu ay u furnaato si raashin joogta ah uga soo galo, si maar daawadi ay uga soo gasho, laakiin waxay leeyihiin ballantaas ma oofinayno. waana arkaynaa xaaladda meesha ay ku biyo shubato, laakiin ifafaalo wanaagsan ma ahan sida hadda muuqato. aynu toos ugu gudubna barnaamijka xiga ee aan ilaahay qodobka xiga barnaamijka. intaynu u gelin qodobada kale ee barnaamijka balaan isla eegno Laanqayrta Cas ayaa la soo wareegtay 15 Falastiiniyiin meydkooda. qaar badan oo dadkan ka mid ah ayaa la sheegay in ay ahaayeen kuwa ku dhintay gudaha xabsiyada Israa'iil. Israa'iil dhanka kale waxa ay maanta sheegtay in dadkii lagu soo wareejiyay meydadkooda 4 ka mid ah ay xaqiijisay inay is yeesheen magacyadii iyo meydadkii loo keenay ama xubnihii loo keenay. ilaan meydadka lafa dhamaaday iyo maaragtay xubno baaba'ay ayaa la isku keenaya. ilaan nimankan meydkii oo dhintay fridge kuma haynin, fridgeer ma haysanin,
godad gaar ah meelal gaar ah ay ku hayeen meydadkaas marka Israa'iil waxay leedahay afar baan xaqiijinay ilaa hadda waana arinta cirka sii geenayso dhinaca kale gudaha Gaza maanta waxa la arkayay Hamas iyo kooxaha iska caabinta Gaza oo ka soo saaray dhulka hoostiisa iyo sarihii burburay qaar kamid ah meydadka dadka reer Falastiin ee guud ahaan dadkii Gaza ku noolaa meydadkooda maalin walba waxa la soo saaraya lafo iyo dad dhintay hilibkooda iyo lafahooda ayaa laga soo saaraya maaragtay gudaha Gaza iyo dadka qaar u dhintay dhaawacyo soo gaaray iyo daawo loo waayay darteed xaaladdu waxay maraysaa meel adag Israa'iilna waxay hadda ku andacoonaysaa in sida aan sheegnay aan loo soo dhiibin meydadkooda waayo walaalaha qiimiga loo qaybaha markaynu meesha uga gudubno waxa ay noo soo socdo fadeexo weyn iyo wajigabax uu la kulmay madaxweynaha dalka Indonesia ninkan wajigabax weyn maanta hayst muuqaal baan idin haya yaa badan Trump iyo Macron maxaa iyaguna kala qabsaday iyana muuqaal ayaan idinkaga hayaa madaxweynaha Madagascar oo baxsaday iyo wuxuu u baxsaday waxa ku dhacay ay warbaahinta caalamka maanta tabinayso waxa sheeko yaab leh dhex martay madaxweynaha dalka Faransiiska Macron iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump sheekadan muuqaalka ayaa qabsaday baraha bulshada wareegtada caanka ah ee la dibbe ayaa soo bandhigtay sharaxaad ku saabsan wada hadal adag oo dhex maray Trump iyo Macron inta ay shalay ku sugnaayeen shirka nabadda ee Gaza Masar ay martigelisay iyadoo wareegtadan iyo warbaahinta kale ay turjumeen hadalka dibnaha labada hogaamiye muuqaalka labadooda way is agtaagnaayeen hadalkooda lama wada maqlaynin laakiin dad waxa jira ku taqasusay boodiga jirka xubnaha dhaqaaqooda Trump ayaa ku bilaabay isagoo dhoola cadeynayo waan ku faraxsanahay inaan ku arko hadii aad adigu faraxsan tahay waa markay salaameen Macron kama jawaabin markii hore maadaama uu kaamirada diiradda saaray Trump ayaa markaas ku yiri runtii Macron ayaa ugu jawaabay dabcan Trump ayaa yiri way wanaagsan tahay laakiin ogow sababta waad idaawacday waan ogahay aniga nabadan doorbiday anaa nabad doorbiday maana adiga dhaawac ay gaariso taagay Trump inta uu hadalku socday Trump ayaa gacanta si xoog leh ugu hayay Macron isagoo aan rabin inuu sii daayo Macron ayaa isku dayay inuu gacantiisa kala baxo isagoo leh raali iga ahow balse Trump ayaa mar kale si xoog leh u sii jiiday gacanta Macron markaas Macron ayaa si degan ugu yiri aan arrinkan kaga hadalno meel gaar ah Trump ayaa ku jawaabay anigu waan ciqaabaa cida idibta Macron ayaa ugu jawaabay waan fahmay laakiin wad arki doontaa waana ogaan doonaa waxa dhici doona Trump ayaa ugu dambeyn yiri samee aan aragnay waan kula kulmi doonaa goordhow wararka qaar ayaa sheegaya sababta muranka inay ahayd go'aankii Macron ee aqoonsiga dawladnimada Falastiin balse dad badan ayaa aaminsan in arrintu ka weyn tahay taas oo laga yaabaa inay la xiriirto khilaafka Ukraine ama xitaa isfaham la'aantii hore ee siyaasadeed muddada dheer u dhaxaysay labada hogaamiye waxa la xasuustay inuu shalay Trump si cad u sheegay goobta inay joogaan ama shirkii Sharm el-Sheikh inay joogaan buu sheegay hogaamiyaal uu nacab yahay isagoo magacyadooda u sheegin haddaba sheekada intaas wax ka weyn dhacay arrintaas waxa ka darnayd madaxweynaha dalka Indonesia fadeexo weyn ku dhacay substanto waxa microphone u xirnaa uu iloobay in ma aragtay codku uu socdo ama codku uu daaran yahay Trump soo ag istaagay madaxweynaha Indonesia markaas uu ku yiri ma la kulmi karaa Eric waxa la wiilka Trump u dhalay markaas buu ku yiri Eric baa rabtaa in la kulanto Trump baa dhahay madaxweynaha Indonesia ay yiraahdaa Eric waa nin wanaagsan buu dhahay in la kulmaan rabaa waan kula kulansiinayaa baa lagu yiri markaas buu ku yiri waxaan u hayaa dhul weyn marka laga dhisi karo guryo investment buu kala hadlayaa waxa la leeyahay madaxweynaha Indonesia wuxuu shirkaas u imaaday in uu wiilka Trump la heshiyo madaxweyne Trump la heshiyo real estate in laga dhiso maadaama Trump qoyskiisa dhismaha guryaha ay real estate ka qatar ku yihiin lacag inuu sameeyo shirkaas u imaaday umaba imaan baa leeyahay qadiyada Falastiiniinta maalmihii la soo dhaafayna war weyn ayaa Indonesia iyo caalamku dhaq qabsaday baraha bulshada aad looga faaloonay kaas oo ahaa in madaxweynaha Indonesia oo Israa'iil heshiis la galay isagoo Mareykan ku qancinay wuxuuna rabay inuu Tel Aviv aado
markay warbaahinta Israa'iil qortay aad hadalkaas loo hadalhayay ayuu inkiray wuu diiday wuxuu dhahay Israa'iil uma socdo been waa hadalkaas shirka Sharm el-Sheikh ilaahay baa fashilay waxa la ninkan kama ahan qadiyada Falastiin wuxuu u tagay xal raadis kama ahan nin kasta meesha ajenda u yimid Trump uu sheegay madaxda qaar wuxuu dhahay 20 daqiiqo gudahood ku imaadeen buu dhahay markaa u sheegnay shirka markuu wax yar ka dhinaan baa u sheegnay hore ka soo baxeen qaar 2 saac 3 saac bay ku imaadeen buu dhahay macnaha waqti badan ma naga qaadanin madaxdu aad u amaanay waxa kamid ah madaxweynaha dalka Turkiga isku soo duub madaxweynaha Indonesia hadda gudaha Indonesia waa loo kacsan waxa la meesha waxa ka jira wax la dhaho conflict of interest fadeexa weyn baa haysato dhibaatadii uu reer Falastiin iyo reer Gaza la damacsanaa isagay maanta haysata qodobkaas markaan meesha uga gudbo Rajoelina waa madaxweynaha Madagascar ayuu madaxweyne ka ahaa ninkan hadda uu fakaday meel adduunka uu joogo lama yaqaan warbaahinta qaar waxay sheegaysaa inuu Faransiisku u baxsaday Faransiiskana arrinta way inkirsan tahay oo way diideen tahay inuu u baxsaday dalkiisa oo diyaarad gaar oo Faransiiska leh in lagu badbaadiyo ninkan mudaharaad weyn maalmaha soo socday maalmahii la soo dhaafay waxa uu ka socday dalka Madagascar isagoo lagu eedeeyay in musuqmaasuq wadankaas ka abuuray shaqo la'aan dhalinyaradu ay qabsatay waa lagu kacay ninkan ugu dambeyn militarigii ayaa goostay qaar badan oo kamid isaga wuxuu sheegay maanta ayuu warbaahinta la hadlay galabta waxa uu na sheegay inuu naftiisa u cabsaday oo uu carray meel uusan magaceeda sheegin inuu ku dhuumanayo isagoo ku sigtay in la dilo kadib markii ciidankii ay ku soo jeesteen wuxuu ku sheegay in wali madaxweynaha Madagascar uu yahay wadankan la isku day in la afkambiyo laakiin dadweynihii oo dhan baa ku kacsan ciidankii baa ka go'ay xaaladda xun waxaana xaqiiqada madax walba oo dadkooda warkooda dhageysan waayo aakhir inay caaqibada xumadaas u dambayso barnaamijka inta ayaynu ku soo xiranaa tan iyo kulanti dambe nabadgelyada Ilaahay dushina assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh